السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات إيه ورم الحمد لله أنا قنوا في عنها إلى ما هذا إسكال مركلا إيوه أنا ذا فيديو حي بريها وان مشغولة عادي عادي السلامة dadkii ila sii joogeen soo dhawaada kuwa oo cusubna oo soo imaan doona insha Allah waa dhow soo dhawaada idinkana subscribe-ka ka iloobi like-kana ka iloobin insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sheeko nagu badan dadka Soomaalida ah sidaan u nahay dad Soomaali waxyaabaha hadda baryahan aad u batay oo mataqaanaa ummadii inay kala cararaan for example gabadha dhibaato iska haysataa oo gurigii soojkeedii ilmaheedii waxbaa adiga dhibaato iska haysato gabadha marka maxay rabtaan warka qof ay ku nafsato oo ay ku nafiso ay nafiskaas ay hadasho in la wixii haayay يعني كنا بقص قفك هدو waxa kibkaraya uuna hadlin waxay ku noqonaysaa jiro inuu waasho ayuu halis u yahay laakiin markuu hadlo uu nafiso oo wixii uu kibkareenay ay ka baxaan at least boss ba u banaanaan laakiin markuu kibkaraya wixii ba asxiraay dhigi ba asxiraay jaq marka qofku wuxuu noqonaa marka inuu يعني markii ma aragta ad balloonka foofto markuu foofanta dhaafto soo ma dilaaca sidaas oo kale qofka bari aadamka inuu dilaaco marka gabdhihii qofkay marka israadaan qofkana kugu dhow ama saaxiib ahaada ama walaalaha ahaada oo mataqaanaa ay u sheegto marka inay u fardabaxdo dhibaatadii haystay yani inay ku nafisay rabtaa inay u sheegto oo ka qaata ka faa'iideysta marka mar ilaa labadii qof sida wax ugu dhareys mar allaala inay bari aadam leeyahay way carabkaadan ilkaada isqoomayo mar walba isqaniinayo aragtay ood kala celin karin saad wax cunaysa adoo wax arkaysa dhag isiyo isqaniine marka dadka adeey waxba ka dhaxeeyaan oo dad يعني isla socda ay yihiin buu isku dhici karaan wax doonta ay isku dhici karaan fikradaha kala waxa isku keeni kara inay fikrada qof walba uu fikrad gooni kala leeyahay oo hadana oo qofka sadana sideena Soomaalida hadda waxay rabaan inaad ila aragteen qofka asaga wuxuu rabaa in adiga uu kurubsiyo this is my choice ka ada iskala choice kan ada iskala qofka kana choice uu leeyahay ana hadaan maanta jecelahay blue oo colorkeegu uu yahay blue this is my color why and my favorite color why waa blue okay and your color is pink adiga for example gabadhan Soomaalida oo blue jecel ama aniga blue jecel my favorite waxaan kuwa qasbaa in aad qaadatid blue-gaas blue aad ku quruxsantahay iska dhaaf pinkiga balaayada oo pinkigan saan pinkiga bab ku fiicnid bab ku qurux badnid laakiin blue markaad xiratid kala aragata أنا حنكون تصينا حنكون قصبة أنا وح أنا كهلا أنا أديني كهشت لكن قفكم ما فهم يكرو أديك واحد هذا داق فكرة كونية أنا أديك لو قف وحنا لبقى قبربانها ما دام على بقى قبرنا وقف البمركو لما أنا قبر كوني اللي قلنا اللي أنا أديك إسكو قبرنا اللي ما قلنا ما فهمت سيداس على بقى قبر أكلتين fikradihidina ay u kala duwan yihiin ada fikrad gooni aan leedahay aniga gooni ayaan leeyahay ana dooq ayaan leeyahay ada dooqaada ayaan leedahay marka waxa wanaagsan way nagu bateen marka Soomaalida way nagu bateen aaday nagu bateen in aan waxa iska wacgelino inaad ila aragteen ama comment-kan igu soo qor waxyaabaha oo noocaas oo kala aragtay qofkii wuxuu rabaa in uu adiga kugu qasba dooqiisi asaga u lahaa inuu adigana ku xiro oo dooqi adiga aad lahayd oo baabiyo binki baad jeclayd
binkiga lagu dhanaa binkiga waad ku foolxun tahay iska badaa taasna maalin kale ka keeni karo laakiin topicayga wuxuu yahay waa topic xasaasi waay topican waa topic jira waa wax jira waay wax socdo waay hadda gabadhii waxaa dhacaysa inaa isku dhacaysiin waa isku dhacaysiin marka waxyaabaha waxaa u keenay for example ahaanaan ka wadi inaa elefantiin isku daya gabadhii aad sanadkan 2 sano wax isku dhureyseen wax baad isla qoomaysiin marka waad kala fikir duwanaysa jak waa isku dhac marka mar alla markii la isku dhacay baa 20 sano 3 sano oo la soo dhaafay waxaad ku dhureysay ood ku nafisaysay bay faqaysaa intaasay kaga faa'iidaysanaysaa waxay kuu haysay oo halkaas ay kugu dhureysay qaaraaba xataa waxaa dhici karta adigoo isla socotiino xataa aan isku dhicino xataa wallahi kaasii sheegaya jiro indhigaan ku arkay kaasii sheegaya waa adina kula jiro qof kalena la jiro ilaahay wuxuu ku dhahay ammaanada uu qofka kuu dhiibto waa anuu hadda dahab kuu keensaday waa walaali macani dahabkan ama lacagan ku keensaday ii haay ammaanada waa wax aada u xun waay warka laguu sheegtana uu qofkan kugu qarsaday waa ammaanay kugu tahay waa inaad ogaatiin gabdhow ammaanada inay la dhiibtay inaad qofka ugu faa'iidaysanin qofkaas waa isku dhacnay qofkan waxaad isku dhacdeen waad isku dhacdeen laakiin secretka labadiina idin dhaxmar oo idin qofkan oo kuu sheegtay ilaahay baan kugu dheer ilaahay ka cabsaa ka sheegin gabadha ha ka sheegin waxay sanadkan kugu qofaysa banaanka soo dhigin haddii marka la waayo qof lagu nafisa haddii la waayo gabdhahena most of them isbitaaladay galayaan because hadda wax badan isbitaalada ku jiraan laakiin way sii badanayaan because qofkii wuxuu rabaa inuu kugu nafiso wax kuu sheego mana qof uu sheegto dadkii waa xaasidiin maanta 3 sano waxay kugu dhureysay baad banaanka soo tagtay kawaay saas bay ahayd saas bay tiri saas bay dhehaysi waa saas waay waa kan waay cunugeedii iyo ninkeedii iyo wixii sheegtay iyo wixii cuntay iyo wixii xiratay iyo berigay jiritay baad waxa soo dhigtay banaanka maxaa ka faa'iiday walaal ilaahay baan kugu dhaariyay maxaa ka faa'iiday barnaamijkayga marka maanta wuxuu leeyahay in aad isku daya inaad saduuq noqotiin ood qofka wuxuu kugu amaansay siduu ilaahay kugu ammaanada uu ku dhow ammaanada uu ka yacni ku celceliyay qofka ammaanada lagu dhiibto oo kala sida dahab adoo lagu dhiibto oo kala ahaan qofka sirtiisu ilaale dahabade oo lagu dhiibto oo kala sirtiisa inaad u ilaalisid isku dhicitaanka israf haddaad rabtiin laakiin ha keenin waxaad baygaad isku ficneedeen aad ahayd banaanka ka keen ilaahay baan kugu dhaariyay walaalay macaani waa hadda dimaqliso gabar Soomaali tahay gabdhaha sirta idinku qarsanayaan sirtooda ha ka soo bixineen ha ka bixineen sirtooda ha kaga faa'iideysina xilliga yar isku xanaaqsan yahay kaga faa'iideysan qofku markuu wax kuu sheego bartakaas ugu dhaqaaq waxaad ugu faa'iideyn kartaan ugu faa'iideey oo nasteexa ah oo qabtaas ku dhaantid oo fikrid aad ku caawin kartid waxa ay kuu sheegtay laq dibdaban ha ugu hadlin qof kalena hala sheer kareyn war marada xataa u sheeg marada aad ku xiran ma aragtay xataa u sheegin sirta gabdhaha ay idin sheegtaan u qeyb karaya ilaahay ka cabsada ilaahay ugu baqo ilaahay ugu cabsada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu cabsada waxa ka socda fiir social media laba gabdhood oo saaxiibo noqonaa berigi ee saaxiibka ahaydaysa warka qaaday idoo ama madaxeeda qaawan idoo ama lugteeda qaawanta idoo ama si idoo ama dhaka jaban tahay
bay sawir ka qaadi way kib garaysaneen mar allaala markay isku soo dhacaan yaa bay soo qofeen wixii sawir ka haysi wuxuu waray ka haysi wuxuu bahalka ka haysi social media daadsan qofka markay waxa ku dhacaa marka wuxuu sameynaa ma taqaana wuxuu ka aamin baxa qof walba oo bili aadama oo saku neefla ah oo socdo buu ka cararaa dhibaatadina way haysataa sida ugu baxda ma taqaano aakhir maxay noqoneen way dilaace dadka walwala meeshiisa la gelinaa maxaa ka faa'iido gabar walaasha Soomaali oo ilmo yar haysato waa bal adi faa'iido aad ka gaaraysid qofta walaasha faa'iido aad ka gaaraysid oo maanta aad ku soo galayso oo ma lacagta ku soo hooyanaysa ma ii sheegi kartaa gabadha walaasha dhibaatadeeda maxaad ka faa'iidaysaa ii sheeg ilaahay ana ugu cabsano gabdhaha sirrigtooda aan ka faafinayn ilaahay ugu cabso walaale gabar walba oo fiidiyogan dhageysato inuu fiidiyogan ku taabto oo meel ka taabto oo waxaad faafinaysid joojisid baa ilaahay kaaga bari inuu ku taabto oo dhaha alayla gabadha waxay sheegayso waa runteed ka daaya gabdhaha secretkooda aad banaanka ugu bixinaysiin ee kugu amaanin sida amaana camal ay kugu dhiibatay ee hayn weysi oo fuulka 4 mitir ku xirana ilmaana wareerino oday kale xaaji macuu la meel ka haysta marka yani adiga adduunyo akor kaaga soo degan wixii baad rabtaa marka qobar walaashayo qofka ku dhow inaad ka sheegtid iska badhaabo waa saaxiibaad sheegaysaa qofkii walaashaada hooyada aabaha isla dhasheen maanta waxa u sheegataad ku sheekaysateen hadda isku dhacdin banaanka taala waa banaanka noqo qof qasnad leh oo qof walba oo imaado wuxuu u sheegay kib garan kara oo marna ku fikirin qofkaas banaankiisa inuu wuxuu soo sheegay banaanka uu soo dhigin noqo naftiida ugu horeyso in aan noqono gabdha qasnad leh oo qofka markuu wuxuu soo sheego bartakaas ku xiro oo dibdiban ugu haldin waan idin salaam walaalay Soomaaliyeed aadan idin salaam subscribe kana hayga iloobin like kana hayga iloobin qaar badan Allah ku siiyo videogan ha ku taabto gabar walba Soomaali oo taabtana comment igu share kara insha Allah waxa idiyada waxaan sheegay marunba masbeenba because gabdhihi hadda qof aaminaya mar wala kala carraaya diriska kala carraay kuwi walaaliya kala carraay gabdhihi isku hadlaan waxa waa ibr qof ay ku neefsato male iska bedelna saas we can do it in aan bedelno we can change yaa gabdho wanaagsan oo isku naxariistan aan noqono oo mid kale u naxdo waxa la yiri kaba bisl maxaa la biliset kaba isma dheer miya af Soomaaliga iga maqan tahay ma iga maqan gabadha walaasha maanta dibka haysa dadka nixweys aday bariyo ku haysataa qorbaba hadaa joogtid wallahi bariyo ku haysataa please aan iska dayno gabdhaha aan ilmaha ka dhaceen oo waqtiga bahal ka dhaceen aan ku caynaynin aan iska dhaafno kaasna maalin fanada video iniga soo diyaarna insha Allah قهري بركة أسكوكني والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته